أنت بترولك مكان صورة قدام مرك أنت بترولك سيسميك يا لسمية داتا الأرورية دولتي تنكور رئيسي يا أبو يا داتا ناس محن كره هذا كمبني كوسيسي كمبني داتا دي وهاي داتا محل وسمعنا يا مرك إلا إن ذلك وحال يري potential وحجري كره أو صورة قلعة إنه ذلك ليه هي شيدان داتا دي نوالها يا داتا دي مرك مسكحين إنها مرك داتا دي ما هين إنه داتا ده وين صوب بندقنه الله سهميه واحد داتا ده شيء جيسه إنه سحته ينكله dadka qeelinaya marka qaar waa siyaasiyiinta xanaaqsan wax kala maaha waxay rabaan dib u dhac inuu dalku ku yimaado sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqeynayeen dalku inuu dib u dhac ugu yimaado daatada in la soo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseenaya inay arkaan daatadii oo ay qaataan daatadii ay baaraan haddaba waxaan idin sheegayaa haddaan la bilaabin waxa weeye in productionkaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco yaa xaqiiqo noqonaysa haddase haddaan bilowno haddii la manaafacsado oo sida ay tahay lagu socdo 10 sano yaa batrool soo bixi karaa hadduu dalkan batrool leeyahay marka 20 sano ma sugi karnaa marka macnaha waxa weeye laba nin oo siyaasi ayaa qeyliyey oo dadkii qashimeeyey oo been u sheegay haddaan sugno 20 sano ma sugi karnaa marka haddii aan dhageysano ninkaas weligiis ka qeylinayay haddaan sugno 20 sano ma sugi karno ummaddeena baahi iyo u dhinteen annagana khayraad yaan dul fadhinaa mana yeelino annagu mas'uul ka ah inaan fiirsano wixii aan haysano ummaddeena in ay ka gaajoodaan qof mas'uul ahna ma samayn karo sidaas wax kale ma aha waa bandhig carweed weyn qofka wuxuu haysto waagii hore waxaa jiri jiray carwooyin yaa jiri jiray bandhig carweed waxaa la soo saari jiray dowladda wax soo saarkeeda iyo khayraadka dalka yaa la soo saari jiray oo lagu faani jiray caalamku waa imaanayaan waxay ka qaadan karaan waa ka qaadanayaan waxay ku karaan oo ku kordhinayaan dadka shacabkana waxay ogaanayaan waxa dowladda iyo dadku uu haysto waxa weeye waa bandhig carweed oo shiir haddii wax kale aan haynana waa soo bandhigaynaa waa ku faanaynaa midda kale oo muhiimka waxay tahay Soomaaliya waxaa lagu sheegaa wax negative ah wax aad u xun dadkan waa dad baahan dadkan waa dad isdila dadkan waa dad dhiigga mahartiga nafta aan qiimeen dadkan waa dad burcadbadeed leh dadkan waa dad maxaan ku raad dawlad nidaamsan oo sharci leh oo aan lahayn dawlad ma aha dawlad nidaamsan oo corrupt ah weeye intaasoo negative la sheegaa war maxaa noo diiday walaalayaalow inaan sheegno waxa kaliya aan haysano oo wanaag inaan ku faanno oo adduunka tusa war dalkan saad mudaan ma ahay dalkan khayraad u leeyahay ha loo dhawaado marka anagu ma waxaan ka shaqeynaynaa adduunka inuu noo soo dhawaadaan rabnaa shacabkeena dibadaha jira inuu noo soo dhawaadaan baan rabnaa annaga inaan isu dhawaanaan rabnaa haddee inaan tusno waxa aan hayno dalkeen uu leeyahay taasi waa arrin runtii muhiim ah oo loo baahan yahay in qof walba uu ku baraarugsanaado haddii wax kale ana shakhsi ah oo laga yaabo in laga fiiriyo waxaan idin cadeynayaa dowladdan anigu madaxweynahan ka ahay dowlad ganacsi maaha dowlad ganacsi maaha waa kala saarnaa waxaa la yidhaahdaa ganacsi iyo public service shaqo qaran iyo ganacsi lisma dhexgelin karo anugu kama shaqayn karo ganacsi maxaa yeelay ummaddan iyo ammaanadooda ii dhiibtay astaan qaran iyo iga dhigtay waxaan ahay madaxweynihii qaranka waa inaan iyagu u shaqeeyo marka waa inaan ka shaqeeyo waxa dadka u wanaagsan waa inaan ammaanadooda ilaaliyo waa sidii aan maxaan ku yiraahdaa barnaamijkeenu ahaa markii doorashadan ku jirnay ammaanada dadka Soomaaliyeed noo dhiibteen inaan u ilaalino cadaaladana u ilaalino cadaaladana u sugno ummadda Soomaaliyeed aan ku baraarujino inay yihiin dad wanaagsan inaan ku baraarujino inay qabkoodii soo celiyaan
inaan ku baraarujino inay walaalo yihiin ee midnimada ku xoog badan yihiin walaalayaalow intaasa aniga la ii doorto ganacsi la iima dooran inaan hebel wax u saxiixo inaan hebel wax ka helo qof alla qofkii dowladda u shaqeeyana hadduusan leenkaas qaadan waxaan kula talinayaa inuu ganacsi iska aado annagu waxaa naga go'an adduunka horumaray sida uu ku shaqeeyo oo aan caawimaadda ka raadinayno inaan ku shaqeyno waana inta diinteena na fartay weeye waa inta dhaqanka diinteena ina farayso inaan diinta iska sheegana ma aha waa inaan ku dhaqanno dhaqankeenu wuxuuna farayaa in musuqmaasuqa laga fogaado mushaharkaaga wax ka badan inaadan qaadan inaad dadka cadaalad u samayso qofna aadan soo dhawaysan qofna aadan fogeynin xaqa dadka inaad iska ilaaliso intaas weeye dalkaaga inaad difaacato dadka shisheeyaha ama dowladaha shisheeyahana si wanaagsan oo ixtiraam leh inaan ula macaamilno inaan ka ogolaanin qursi inaynan ka ogolaanin annagu intaasaan ku shaqeynaa intaasna waa inta diinteena na farayso inta dhaqankeena Soomaali oo awooyaasheena ku dhaqmi jireen aan ka baranay weeye waana dhaqankaas dhaqanka wanaagsan oo aan doonayno inaan soo celino hadduu Ilaahay yiraahdo ama santii